doontaan aadan biil ku geyseen ma noqonaysa wali dacar kharaar baa taala meeshaas hadii ba la diiday dawladnimada dadkani wuba yaqaana inuu muddo badan dagaal galay war inoo kala saxiixa barintaad rabtaan bal ma 20 sanaad rabtaan ma 30 sanaad rabtaan barintaad rabtaan farmaajiga khayrow inoo kala saxiixa bal hadaa diideen Soomaalinimo iyo wada jir hadaa diideen dadkani waxayba ku soo caana maaleen waaba dhibaatadaaba sideedaba waxaan leenahay marka hadii Ethiopia iyo meesha la yiraahdo Eritrea amxaaro iyo oromo iyo Eritrea intaba hadii la leeyahay Soomaali baa isdhex qaadaysa walaaliga maxay ii diidaya inay jigjige iyo isdhex qaada gaarisi iyo Kismaayo inay isdhex diida maxay ii diidaya hadduu se farmaajo ku bedelan hayo dhulka Soomaaliyeed qaar kamida qaada dawladaha qaar koodow Kismaayana aniga gacanta ii gali aan ritaaya ku qaatay rag baa ritaaya ku qaadanaya adiga oo laakiin nin Soomaaliyeed oo madaxweyne soo maray oo umada u soo shaqeeyay oo karaama leh hadii aad tahay waliba waa meeshay wadiga iyo iskaga daraan baddu ee goobweyn halkaas guri lagaaga dhisay adigoo Soomaali ah laakiin haddaad la timaado indha cadaynaya shaqadii reer muduga haddaad la timaado waaba daleesarki doonaa badde waliba luuqada aad jeceshiin baan u hadlayaa anigu waxaan leeyahay marka haddii Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea la isku darayo oo Soomaali daayeer noqonayso kulay ka weyn baan noqon doonaa anigu waxaan leeyahay marka hal la ilaaliyo wada jirka dadka Soomaaliyeed dadka dariska isku wada dhowna hal la ilaaliyo gada iyo Jubbaland dadkeeda oo wada casheeya Axmed Madoobe intuu meesha yimid baa ugu horeysay aniga Axmed Cumar Jees baan joogay Gabiyow baan General Gabiyow baan joogay Allah u naxariistay Morgan baan joogay Barahiir Aalaan joogay intii mushkiladii ka dhacaysay oo dhan ugu Jubbaland baan joogay waxay ahayd baan ogahay maanta waxay tahay war qofka ay deeqilaadahay nabadow gadi iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo wada qadaynaya qofka diidayo hadaanu ma garanayo waxa doonayso farmaajo weyga laba dhowr way ka hor rasaasti iyo hubkii uu ka dhiibay meesha la yiraahdo xamar war dheer baa lagu weeraray daawacoodina wuu soo qaaday daawi iyo rasaasti u geeyayna caabud waaq baa la geeyay shalayna xildhibaan buu u diray meesha la yiraahdo jigjiga oo yiri reero habar gidirana soo weerarayay nagala hadal Mustafa kala soo hadal xagee ku wada shaqeynaysa waxaas ciyaar jecel baa loo diray ma wuxuu moodayaa isagu waxa Mustafa soo ma garanayo waxa uu farmaajo doonayo wuxuu farmaajo doonayo Mustafa garanaya madaxweyne Mustafa waa nin professor waa nin dhalinyaro ah waa nin qoraa waa nin isaga ka khibrad badan geeska Afrikana wuxuu ku leeyahay 170 degmo ku leeyahay farmaajo inta degmo ku leeyahayna waa la yaqaanaa takartii maroodiga liqdaan soo tufleeyahay wuri oodaan war waxaan wax shaqeynaya ma aha aqliga bini'aadamku inuu shaqeeyo yaa loo baahan yahay waxaan leenahay marka Mustafa waa nin madaxweyne ah qof kasta oo u taga wuxuu xaq u leeyahay ee isaga gurigiisa ugu taga inuu qaabilo u leeyahay laakiin sababaha loogu daray waan garanaynaa Mustafa inuu isla soo sawiray ninka la yiraahdo muxuu ahaayay ciyaar jecel dadkuna uu kala shakiyo inta kaliya waan ognahay de Mustafa ana waan ognahay Mustafa wuxuu farmaajo doonaya wax ka sii weyn buu doonaya hadduu se isku dayo in caabud waaq uu halka ka ilaaliyo Mustafana jigjiga wuxuu ka ilaalin doonaa Jubbaland gaarisana waxa laga ilaalin doonaa Jubbaland ummadana waxa wanaagsan in dadku uu si islaamnimo iyo ehelnimo inuu wada socdo annagu waxaan leenahay gado waa Jubbaland gado waa bu'aale waa jubbada dhexe waa Kismaayo waa gado dad ehelaa wada degan waxba wada deeqa waxba wada dila haday laakiin taasi deeqi weydo haday waxa dhici doona waa la iska garan doona laakiin waxa leenahay waxa fiican ha deeqo inta hadaan ka gudbo
dadka xildhibaanada ee saddexdan gobol ka soo jeeda aan moodid inay iyagu hadda ay basidaba xarka goysba inay yihiin oo meel ay ka yimideen iyo cid soo dirsatay iyo cid ay wakiil ka yihiin midna uusan jirin ee subaxba meeshay doonaan u qaraar tagaya annagu waxaan leenahay reer Jubbaland baa tihiin haddaad say hadda kolley la idin soo dooran maayo mar dambe intaas la idin soo dooran waxaad iska sii guran kartaan iska sii gurta ninkii Jubbaland doorasho ka doonayaana ha yimaado xaq buu u leeyahay أحمد محمد إسماعيل ماشى إسكامله صومالي با إسكاله رجوب بلان با إسكاله قفكي وحقوق بنا يانا إسكاله أحمد محمد إسماعيل وحقوق قبته وحلا حقير كرم ما هوان أرقنا قفكي وحكفي عن قبنا يو أروح ملا الماء كوكرسة الدوني مني قفكي وحسا كفي عن قبنا يو إمو أو كان عد كان نجد لكن حمر بان فديا أو هبل با يصدر يو يقدم بيا أو العقد الرخاص وقالا لا يصير يا أو رجوب بلان بان كوكلا جديا وحاسن نمر مرتو نمر مايسو وحالنا هي مركا خيرية فرماجو dhibaatada ay Soomaaliya ka sameynayaan hadaan iyaga ku noqdo waa niman reer galbeed farmaajo Mareykan buu ka tagay waa reer New York waa reer Buffalo ninka la yiraahdo khayrana wuxuu ka tagay Norway mid walba caruurtoodu waxay u joogan wadamadan dadka ay duulaanka ku yihiin dadkoodina hore u laayeen haddana inta ka hadhay ay doonayaan inay laayaan dad Mareykan isla yihiin arigaas 60 sano saddex wiil oo dhalay baa Kismaayo ku nool iyo mid walba intaasoo ilmooda u dhalay هل المهدو حتى صبح المحكمة دان تجي مرايكنك ولا دعوينية وصوديان ما تدينا دعوة سان تدكينا هدي الله وابلن إلهي فرماجو هدي ودب وجهك سوى يديك تدك الصومالية ده أونلاين أيو إسقى أوف ستيسن مرايكن جاب كقوة هدو تدك أونلاين يكتنازلي وايو إيه فدراليزم كي تدك الصومالية استو إيمان شهادة وابلن بتشن إن أنك قرآن أبوه أي أولان maxaad dowranaysaan waryaarahe maxaad dowranaysaan caruurtiinii aad biilka u diranaysaan hadduu farmaajo oo Mareykan idin leeyahay oo canshuurtiina wax ku bartay hadduu maanta duulaan ku yahay maxaad doonaysaan aad gamcaha dhuunta ugu haysanaysaan waa maandar xaweeye waan dacweynaynaa dayna mayno waxaan leenahay marka la isu dulqaadan mahayo waaba ninka ugu nugulba hadda dadka madaxda ka ah Soomaaliya dadka ugu nugulba waaba u jecel dadka reer galbeedyadan ka taga ويبنو سيمان دونا هدي لا إله إلا الله وركايجي مركا وان بديي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته